Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada halkan waa walaalkiin Faaliyaha. Maanta waxaan idin soo gudbin doonaa warbixintaas oo ah muhiim. Haddii aad aragto fadlan warbixintan u gudbi dadka qaxootiga ku nool xerooyinka Dhadhaab, hadday tahay Ifo, Dhagaxley ama Xagadheera. Fadlan warbixintan sheegarey dadka gaarsii. Jiraan waxaa la dhaho Bamba Chakula oo caqabad weyn noqotay. Dadweynihii waxaa la siiyey leeman Bamba Chakula oo leemankaas oo ay kala baxaan lacag bishii hore oo bishii tobanaad iyo 11aad waxaa soo dhacay lacag 600 tii ugu dambeysay oo ahayd bishii 11aad taar 19 ay soo dhacday bishii 11aad taar 19 ay soo dhacday waa la bixi lacagtooda. Marka waxaa kala jira Bamba Chakula lacag badan ku jirta, lacag badan ayaa meesha dhex taala. Lacagtan Soomaaliya ka maqanta, lacagta waxay ka maqanta Soomaali. leeman waxaa jira lacag badan ee ku jirto 80 70 60 leeman 90 ku jirta arki. Ninkii ma maqno sul buu saaraya. Marka waxa hal baan soo ogaaday, hal sir baan soo ogaaday, hasha sirta idin qarxin. Sirtan soo ogaaday waxay tahay maalin dhaxaas bishii ka horeysay oo bishii 11aad bishii 10aad dhamaadkeedii ayaa waxaan arkay tusay dad badan oo leeman badan ay ku jiraan lacag badan. leemanka lacag badan ay ku jirto waan fiiriyay, leemankii magaciyahan qaaday waxaan la tagay Dhagaxley tusay xaradan la tagay Dhagaxley. dadkii aan fiiriyay dad aan garanay noqdeen. dadkii aan garanay oo meesha ku qornaa oo dadweynaha ahaa gurigoodan uu tagay. Maama waxaan dhahay kaarkaaga Bamba Chakula aawe. hooy waxay tiri maalintii aan soo qaaday dukaan baan geeyay, dukaankii aan dhigay ayuu yeelay ani raashin iska qaataa. raashin ayaan iska qaataa. marka raashinkii waa iska qaataa dantan waxba ka maqnaa wax ka maqan yihiin waa traders-ka ganacsadaha ay ka maqanta lacagtan. ma ogtahay qof ganacsade in ay ka maqneed 298,000 ganacsade oo dukaan joogo oo dukaankiisa ka warqabo oo dukaanka gadanaya ganacsanaya 298,000 ayaa ka maqan kama warhayo. waxay ahaayeen 6 qof oo asaga kaar u hayay. 6 qof aan soo kaxeeyay, asaga dukaankiisa imaanay, meesha fadhiisanay. marka wuxuu dhahay waanta waa soo alaamay, wuxuu dhahay waa soo dheeraatay, waan soo dheeraadaan dhamaanta adaa marti ku ahay bal waan fadhiisanay gumiro noo dhigay waan fadhiisanay. marka waxaan dhahay maamooyinka ma garanaysa haa yaka adeegtaan anaga iga adeegtaan waay. maama waxaan ku dhahay lacagtaadii oo doorkii ugu dambeysay aadtiisa buuggoodii tus. buuggaan uuna tusay, buugga hadduuna tusay dadkii qaar baa lagu leeyahay balance oo deen u leeyahay lacagtooda mar ray qaateen. maamooyin markaan wareysanana waxay leeyihin aniga lacagteena waa qaadanay wax lacag naga maqan bil kasta intaa ka adeeganaa. marka yaa lacagtii maqantay waa asagii dukaanihii ka maqantay lacagtii. marka liiskaan tusay lacagtii aan soo darnay 298,000 lacag noqotay. ninkii waxay ku noqotay filan waa ku noqotay filan waa. ninka wuxuu dhahaa dukaanka hoos unbuu socdaa 50 ku dar 30 ku dar 20 ku dar hoos unbuu socdaa dukaankii. dukaanka hoos unbuu socdaa ninka uu yaabay. qofkii ku xigay Dhagaxley waxaa ugu jirtay 185,000 lacag ayadana maamo kala dukaan leeyahay. markaan u tagay ayay nafteeda dadkii aan soo kaxeeyay aan u keenay dadweynaha ma garanaa maalintan ay adeegtaan waay. markaan u tagay way yaab maamadii waa la soo baxay dadweynahan soo waday meesha xaradan keenay leemankii waa la diiwaangeliyay. tii kale ku xigtay waxaa kala jirtay 170,000 ayayna duqara iska lahaa duqo ma garanayaan dadkan. most of them traders they are not educated. dadku waxma baranin ma kala garanayaan. leenka haduu biin hata isku xiro bis biin isku xiro meel la ka dhigi leenka marka lacagta ku dhacaysa lacagtii way ku dhacaysaa dadka ka murayaan. dukaanleygi oo iska qaanay ani hadda kula hadlay leenkeyga dukaan aan iska dhigi dukaankii ay lahayd waxaan iska qaataa raashin aan iska qaataa. ninkii dukaanaha inuu asal socdo lacagtiisa la baxay ay ahayd. marka wixii marka qaxootigii Dhagaxley oo kale hadda way gubatay, dadkii way baseen waa hanta beeleen. marka waxaan isku xilqaamay oo in aan dadkii aan wixii aan garanayo oo aan arkayo oo ama arkayo wax uu qaban karo ama wax uu qabto oo aan u sheego waxaana walaalo jiraa saana u jiraan waxaan lacagtana ka maqan kala diiwaan gasho lacagta ku imaani dadweynihii soo dadkii keen xaradii LOLV waxaan keenay beneficiary iska lahaa leemanka ayaan keenay. beneficiary waxay sameeyeen waa la diiwaan geliyay ala kulli xaal lacagtii way imaatay. ninkii wuxuu kala baxay leemankii
298 kun ay ahayd lacag kala bishii kala ku soo kordhacday 320 wax buu kala baxay lacag 320 ayaa uu kala baxay lacagtiisa marka arinta waa arin muhiim ah marka dadweynaha waxaan rabaa inaan u sheego dadka traders-ka hadda waxaan ka soo baxnay shirkii raashinka ayaan ka soo baxnay shirkii raashinka haddaan ka soo baxnay waxaana loo sheegay in lacag intaa ka badan ay ku jirto meeshaas oo ay shaqaynayso oo lacagtaas la celin rabo bishii 12aad in la celiyo lacagtaas la celiyo ayaa la rabaa oo bishii 12aad lacagta waa la celin rabaa bishii 12aad December 31st January 1st mayno lacagta ay ku noqon account WV ifo aan la hadlaa reifo dad waxaan arkay 90 kun oo jirta 90 leemo waxaan arkay 90 kun jirta xaga dheer saas 78 90 ku jirta marka waxaan leeyahay dadweynaha ifo ku nool oo dukaanleyda ah dadweynaha beneficiary hadii leenkan ka maqan yahay oo waxba la siineen beneficiary imaan lahayn meesha WV waan lahayn waxa ka maqan yihiin waa dukaanla ka maqan yihiin dukaanna waa dhacan tahay haddaad degantahay ifo haddaad degantahay xaga dheer haddaad degantahay dhagaxley dib ugu noqon leemanka aad hayso in dadkii lahaay ay ka qaataan waxooda oo aad lacagta la baxdo xisaabtan fadlan xisaabtama dadweynaha Soomaaliya xisaabtama lacagta aniga dad wax mu tarayso WV wax mu tarayso waxay ku noqon account WV anaga qodob Soomaaliya waxay noo dhaantaa in dadkan caanaha daabada caanaha ka qaadeen misdiinta ay ka qaadeen in lacagtooda la baxaan ay wax kale noo keenan ay dan noo wayta aniga hadda arinta aan sheegayo arin qof iyo xisaabtama laha meesha aan arkay marka Soomaalnimo ma u daqaday ayaan arinta u soo dhigay aan u soo sheegaya marka dadweynaha hadda waxaan aan qabanayo waa iska voluntary hadda aan qabanayo ayaa dad ba caqabad ay ka dhigeen oo hadda ay ugu caynayaan ay u rafaadinayaan ay u aflagaadeynayaan marka arinta waa arinta fadlan dadweynaha ay sheegayna taariikh 31 bishii 12aad lacagta dib ay u noqoni reifo raaga dheera dhagaxley dukaanleyda joogto ganacsiyaasha joogto fadlan waxay in sheegay in lacagtii la baxdin haddii leenka uu ka xidhan leenka ahayna ganacsiyaasha leenka ahayni qofkii iska leenka u tag kaali waxa dhihi kaali leenka duwan geli lacag ay tahay waxa ninka aad diin ka qaata lacagta diin buga aan lacagta uu sii cunay waxaan kana rabaa inaan u sheego dadka magacyadooda rabaa inaan soo qaado oo lacagta badan ku jirto oo aan soo baafiyo camera soo fiirsan doona waan akhrin doona magacyaha ama waxaad ka heli doontaa Facebook page-kii ka heli faaliyaha dhab aqoonta magacyaha ma soo gelinaya ama saan usoo duwa YouTube aan soo gelinaya waan soo akhrinaya magacyaha haddaa tahay ifo haddaa tahay dhagaxley haddaa tahay dheer waan soo akhrinaya marka dadweynaha waxaan rabaa inaan u sheego inay la socdaan oo warbixintii update-ka ugu fiican aad la socoto oo saad ugu socon lahayd adiga inaad dadaal ku bixisa ama YouTube kan soo geliyo TV soo gelina faaliyaha dhab soo gelina ama Kavi Media soo gelina labada YouTube haddaa subscribe aad saarto warbixinta qaxootiga waa la soconay oo xiriirka dhab waa la soconay marka inaad subscribe saarto oo xiriirka dhab aad la socoto warbixinta ee faa'iido ku jirta si fiican lacagtaada ku badbaado oo waxa aan sheegayno meesha aan ka sheegayno haday tahay raashin haday tahay bamba jakula haday tahay UNHCR dhalasho iyo wixii ay tahay meesha warbixin aan ka soo gudbinayno waxaa fiican inaad subscribe saarto sifa aad ugu faa'iido macluumaadka meesha aan ka bixino oo warbixin aan bixinaya marka dadweynaha oo ku nool xiriirka dhab waxaan ka codsanayaa in dadka camal oo waxa camal sameynaya oo caaytamaya wax ka soo qoraayo oo comment soo qoraayo oo waxa sheegan la garanayeen inay ku daynin ay anagana de warbixintii aan soo dhigno meesha ay dadkii warbixintii ay u sheegaan ay horumariyaan warbixintii ay sheegaan meelaha ay soo dhigaan ay geliyaan ay sheegarayaan tan kan waxaan codsanayaa inaad saartiin subscribe saartiin channelka faaliyaha dhab iyo Kavi Media laba channel soo dhignaa warbixinta qaxootiga ku saabsan inaad subscribe saartiin aad like gareysiin aad share gareysiin aad daawatiin warbixinta meesha aan soo dhigno warbixintan aan soo dhigayno waxay muhiim u tahay dadweynaha ku nool xerooyinka dhab iyo localska oo degan xerooyinka anaga local waa walaalaheena waa dadkeeni waa Soomaali xumaan uma qabno waa dad fiican way soo dhaweeyeen dhirtooda dhameeyeen wax kasta ku sameeyeen dhulkooda aan deganahay waa ognahay awaal baan u haynaa laakiin hal qof oo ninka oo kale iska hadlay waxaan dhihi lahaa kuma dayanayno insha Allah waxaan kale aan ku soo gabagabeynayaa in warbixinta bamba jakulada ay tahay arrin muhiim arrintan si degdeg ah u soo dhigi doonaa YouTube aan soo gelinayna
faaliha dhaab iyo kaafi media kala soconaysaa facebook aan soo gelinaynaa meelaha dhiyaan soo dhigaynaa marka dadweynaha u sheeg ninkii ogeyn oo dukaanlaha oo degan xaga dheer ifo dhagaxley oo ogeyn in lacag lala noqonayo lacagtaasna ay tahay lacag dukaanle ay ka maqan tahay dadweyne ka maqan lacag badan ayaa la noqonaya 80 milyan ay ahayd lacagta 80 milyan lacag ku jirta mees hadda 80 kun ana badbaadi 80 kun lacag aan badbaadi oo Soomaaliya ay leedahay 80 kun 800 kun arwa 800 kun sorry 800 kun ayaan badbaadi oo Soomaaliya ay leedahay oo dadka ilaahay la bixin hadda aniga u sheegay ay ogeyn dukaankooda aan u tagay maxaa u malaysaa inta kale maqan saaki markii shirka FCC meeting shirka raashin la galay dadkii guddigii meesha fadhiyay gacanta ma saarteen ninkii meesha fadhiyay ani hadda isma amaanay laakiin uu ugu amaanay inaan sameeyay shaqo fiican oo aan soo baxay oo aan arinta aan sheegay oo warbixinta aan gudbiyay dadna lacag ay heleen lacagtooda ay heleen waxa kale oo sheegay ifo xaga dheer kaarar badan oo la qaadan oo bamba jakula inay yeelaan xafiiska ifo iyo xaga dheer dhagaxley waa ka shaqeeyay maadaama qaxooti aan ahay oo aan socon karin oo gaari aan haysanin oo aan aadi karin ifo ama xaga dheer aan tagi karin markasta maalmaan aan taga yaaba laakiin markasta u baan taala ma tagi karin xaga dheer ifo ma tagi karin xaga dheer ma tagi karin waayo markasta ma socon karin nin iska qaxooti ahay gaari ma haysti wax ma haysti hadda kamera taan soo duway yar walkii kaafi lahay aysan free wa caawinayo maadaama ani asan u arkay inaan free aan bixinayo warbixin free aan bixinayo asagana wari waaye uu shaqeystaa marka wuxuu bixinayaa free service asan uu bixinayo camera iga qaaday iga dubaya marka haddii gacmaha isqabsan leen dhalinyarada ku nool ifo iyo xaga dheere marka waxaan u sheegayaa dadweynaha ku nool xerooyinka dhadhaab in lacagta dad bay anfici Soomaali lacagta Soomaaliya iskale fadlan lacagta ala noqonin waxaan codsanayaa lacagta in la noqon anina waan dadaalaya juhud baan ku bixinayaa in WFVIC aan magacyaha lacagtaas iskale haday tahay xaga dheer haday tahay ifo haday tahay dhagaxley inay isyaan ku qasbay waa inay isyaanayaan haday isyaan waan soo gudbinayaa fadlan la soco waxa meesha ka socdo marka la soco warbixinta soo gudbinayna waa muhiim u sheeg ninka dukaanaha hadaad beneficiary aad tahay dukaanla aad joogto dukaan waxa ka qaadato aad u sheegto oo aad dhahdo dukaan weyn arrintaas la leeyahay leeyahay